sidaynu wada ognahay shirkadda YouTube waxay leedahay adeeg lacag bixineed oo loo yaqaano YouTube Partner Program. Si aad uga mid noqotana waxaa loo baahan yahay inaad soo buuxiso 4 shuruudood oo aad kaga mid noqonayso. Haddaba muuqaalkeenana waxa uu ku saabsan yahay marka shuruudaha soo buuxiso ee aad ka mid noqoto YouTube Partner Program. Waxaa jira 2 qodob oo jaangoynaya xaddiga lacageed ee la siinayo YouTuber kasta oo raba inuu lacag ka sameeyo shirkadda YouTube. Lacagta dadka YouTuberiska ay helaan ma aha mid isku mid ah oo way kala lacag badan yihiin. Haddaba 2 qodob ayaa ku go'aan qaadanaysa shirkadda YouTube. Si loo ogaado lacagta lagu siinayo waxaa loo yaqaanaa CPM iyo RPM. Haddaba si aynu u fahanno RPM waxa uu yahay, marka hore waa inaynu fahnaa CPM waxa uu yahay. CPM waxaa loo soo gaabiyaa cost per mile, waxaana lagu qiyaasaa xaddiga lacagta ah ee qofka wax xayeysiisanaya uu ku bixiyo kunkii qof ee xayeysiinta la tusayaba. Waxa ugu badan ee shirkadda YouTube ay lacagta ka samaysaa waa xayeysiimaha dadka. 45% shirkadda YouTube ayaa qaadata, 55% soo harina waxaa la siiyaa dadka. Tusaale ahaan, haddii qofka wax xayeysiisanaya uu kunkii qofba ku bixiyo $1, marka kunkii daawashaba waxaa lagu dhufanayaa halkii $, ee qofka wax xayeysiisanaya ku bixiyey, waxaanay noqonaysaa $10. Haddaba $10 shirkadda YouTube waxay qaadanaysaa $4 iyo badh. $5 iyo badhka soo harina waxay u qaybinaysaa creatorska ama dadka muuqaalada soo geliya. Haddaba waxaa jira qodobo saameyn ku leh CPM-ka oo korna u qaadi kara hoosna u dhigi kara. Waxyaabaha ugu waaweyn ee saameynta ku lehna waxaa ka mid ah location-ka ama waddanka uu ka diiwaangashan yahay ciwaanka uu ku samaysan yahay YouTube-kaagu. Tusaale ahaan, waxaynu isbarbar dhiganaa Maraykanka iyo Soomaaliya ama waddamada Afrikaba. Kombaniyada ugu badan ee wax ku xayeysiista YouTube waxa ay ku yaalaan Maraykanka. Markaa kombaniyadaas targetkooda waxa weeye waddanka Maraykanka, oo waxay rabaan in dalka Maraykanka xayeysiintooda loo gaarsiiyo, halka dadka Soomaalida ah aanay shirkadda YouTube waxba ku xayeysaninba. Marka kunkii qof ee Soomaaliya ka daawada iyo kunkii qof ee Maraykanka ka daawadaba isku lacag maaha, oo waxaa laga yaabaa kunkii qof ee Maraykanka ka daawada inaad $10 iyo wax ka badanba lagugu dhufto, halka Soomaaliya laga yaabo inaad $1 iyo wax ka yarba lagugu dhufto kunkii qof. Qodobka labaad ee saameynta ku leh waxa weeye niche-ka ama mawduuca aad kaga hadlayso channel-kaaga. Tusaale ahaan, haddii aad tahay qof soo gudbiya sida vlogyada iyo reactionska, ama aad tahay qof soo gudbiya sida dhaqaale ama investment loo sameeyo, way kala lacag badan yihiin. Oo waxaa vlogska ka lacag badan mawduuca ah sida dhaqaale loo sameeyo, maadaama xayeysiimaha la dul saaraya ay ka qaalisan yihiin kuwa vlogyada. Qodobka saddexaad ee saameynta ku leh waxa weeye tayada muuqaaladaada. Haddii aad muuqaalo fiican oo tayo leh dadkana wax u soo kordhinaya, in badanna ay daawadaan, aad soo geliso channel-kaaga, isla markiiba algoritmska YouTube-ku waxa uu muuqaalkaaga u diiwaangelinayaa inuu yahay muuqaal dadku ka heleen, waxaanuu sii gaadhsiinayaa dad badan. Mar kasta oo muuqaalkaaga dad badani daawadaanna waa mar kasta oo uu lacag fiican muuqaalkaaga sameeyo. Waxaan filayaa inaad iminka CPM ka haysato fikir kugu filan. Haddaba aynu u gudubno RPM waxa uu yahay. RPM waxaa loo soo gaabiyaa revenue per thousand, waana isku darka totalka lacagaha aad ka samaysay kunkii qof ee channel-kaaga daawadayba, waxaana la isku geenayaa dhammaan lacagihii ku soo galay bishii lasoo dhaafay. Haddaba waxaa jira dhowr qodob oo aad lacag kaga samayn karto YouTube, waxaana ka mid ah tan ugu caansan oo ah adhiska ama xayeysiimaha. Sidoo kale waxaa jira wax la yidhaahdo YouTube Membership, oo ah inaad soo geliso muuqaalo gaar ah oo qofkii raba inuu daawado lacag bixinayo. Sidoo kale waxaa jira wax loo yaqaano Super Stickers, oo ah stickers ay dadka kugu soo dirayaan isla markaana shirkadda YouTube ay lacag kugu beddelayso. Haddaba marka la isku geeyo dhammaan lacagahaas aad samaysay, shirkadda YouTube waxay qaadanaysaa 60%, 40% soo harina adiga ayaa iska leh. Haddaba 2 qodob ayaa saldhig u ah habka ay u shaqeyso YouTube monetization, ama waxaynu odhan karnaaba waa habka ay sida shirkadda YouTube laftigeeda iyo dadka muuqaalada soo geliyaaba ay lacagta u sameeyaan. Gabagabadii, haddii aad halkan nala soo gaadhay, nagu soo biir, waayo channel-kan waxaan soo gelinaa wax kasta oo ku saabsan sidii aad baraha bulshada lacag uga samayn lahayd halkii aad noqon lahayd keliya daawade.